madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay Gabiley sida warbixintan inoogu soo diray wariyayna Qadar Cabdi Cabdullaahi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay wehelinayaan xubno kamid ah golihiisa wasiirada ayaa saaka soo gaadhay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley iyadoo madaxweynaha si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolkaasi soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxa si weyn uga qayb qaatay maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada Cuqaal haween iyo dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada gabadii madaxweynaha ayaa loo soo galbiyay guriga martida ee gobolkaasi waxaana safarka madaxweynaha ka warbixiyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Jaamac Warsame waxaana kamid ah hadaladiisii madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay xarunta gobolka Gabiley ee degmada Gabiley wafdiga madaxweynaha oo saaka soo kicitimay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ujeedada socdaalkoodu wuxuu daaran yahay hawl maalmeedkii shaqo ee dastuuriga ahaa ee uu madaxweynuhu ku mari jiray gobolada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland muddada uu ku sugan yahay madaxweynuhu xarunta gobolka Gabiley wuxuu xoogaal u noqon doonaa xaaladda guud ee gobolka Gabiley horumarka iyo mashaariicda horumarineed ee ka socda madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ku sugnaan doona magaalada Gabiley xaruntiisa gobolka Gabiley waxay kulamo la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka Gabiley iyo kan degmada Gabiley tan iyo saaka madaxweynuhu intii uu ka soo kicitimay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ilaa uu soo gaadhay xadka gobolka Gabiley uu la wadaago gobolka Maroodijeex waxay shacabweynaha reer Gabiley ku qaabilayeen soo dhaweyn aad u sareysa iyagoo wadooyinka la tubnaa calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan madaxweynuhuna taa bedelkeeda isagoo dareenkooda farxadeed iyo reereynta ay shacabkiisu u qabaan madaxweynaha uu ka dareen celinayo wuxuu socod luga ku dhex maray magaalada jidadka waaweyn ee magaalada Gabiley guud ahaan waxaan si aad iyo aad u mugiyo miisaan weyn ugu mahadnaqaynaa guud ahaan shacabweynaha reer Gabiley ee madaxweynaha sida diiran u soo dhaweeyay gaar ahaan shacabka caasimadda gobolka Gabiley ee cagaaran ee degmada Gabiley dhammaantood maamulka gobolka iyo kan degmada mahadnaq aad iyo aad u ballaaran ayaan u soo jeedinaynaa aad iyo aad Qadar Cabdi Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley